maskaxdaada kobci maankaaga kori macnaheedu waa murtida ku dhaqan maamuuska diintiyo kana sheegtan maadiga mareegteedu waa naftaada mas'uul ka noqo mansabkaaga ha seegin maskax eebba ku siiyana maqaamkeeda ha diidin kor u qaadaha kaabaha bulshada maan kobci السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحابة قارئة ديتا مركز يوريدو صوبا قطة channel سبسكرايب نوذاك أصحابتاada kana soo dhawaada muuqaal fiidiyogeena waxaan ku falanqeyn doonaa 7 faa'iidooyin oo laga helo liin balbeelmada in badan oo dadka ka tirsanay ma oga faa'iidooyinka waaweyn ee caafimaad iyo kuwa qurxooneed ee liintu leedahay waxaa taasi ka sii daran in qolfeeda oo dadka badan ay iska tuuraan laga helo tabanlaabka in ka badan fitamiin C-ga laga helo helitaankeeda qolfaha liin balbeelmada waxaa laga helaa ilaa 10 fitamiin C-ga laga helo cabitaankeeda ku darso taas waxaa kuu dheeriya fitamiin A haddaba daawade ama dhegeyste ka daalaco fiidiyogeena 7 faa'iidooyin oo laga helo qolfaha liin balbeelmada number 1 waxaa lagaga hortagaa kansarka qolfaha liinta waxaa lagula dagaalamaa kansarka waxaa laga helaa 2 maado oo la kala yiraahdo flavonoid iyo sulfaterol oo bixiya 40 qaab oo lagula dagaalamo unugyada kansarka sidaa darteed haddii aad joogtid cabitaanka qolfaha liinta laga sameeyey waxaa ka hortegi kartaa noocyo badan oo kansarka oo ay ka mid yihiin kansarka madaxa kansarka caloosha kansarka naaska iyo kuwo kale number 2 kolestaroolka jirka oo hoos u dhigo qolfaha liinta waxaa loo adeegsadaa in hoos loogu dhigo kolestaroolka dhibaatada u leh jirka waana arrin u fiican halbowlayaasha jirka iyo caafimaad qabka wadnaha number 3 caafimaadka lafaha qolfaha liinta waxay u roon yihiin caafimaadka lafaha fitamiin C fara badan iyo calcium laga helo darteed waxaa isdhaafi doontiin lafa xanuunka halkan ayaan ku hakinaynaa baartigeennii koowaad oo ahaa 7 faa'iidooyin oo laga helo qolfaha liin balbeelmada fadlan daawade ama dhegeyste haddaa nagu cusub tahay ha naga hilmaamin inaad subscribe noo saartay channelka iyo sharena kama marna fadlan aaraadaadana halka hoose noogu reeb niyo fiidiyogan intaas kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo